Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, Peace and Security Council has submitted an outstanding report. mudane gudoomiye Cyril Ramaphosa madaxda kale marwooyin iyo mudanayaal guddiga nabadda iyo amnigu waxa ay soo gudbiyeen warbixin aad u wanaagsan waxaan rabaa inaan adkeeyo inay Soomaaliya tusaale fiican u tahay in qoryaha la dhigo maxaa yeelay haddii ay xasilooni buuxa hesho waxa ay noqon kartaa xarun dhaqaale oo xoogan oo door muhiim ah ka qaadanaysa horumarka qaaradda marka laga fiiriyo kheyraadkeeda goobta istiraatiijiga ah ee ku taalo iyo dadkeeda hal-abuurka ganacsi leh si kastaba ha ahaatee Soomaaliya waxay muddo la dagaalameysay argagixisanimada caalamiga ah iyadoo gacmaha ka xiran xunaqabataynta hubka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa ay xadidaysaa awoodii aan ku heli lahayn hubka lagama maarmaanka u ah in laga adkaado argagixisada kuwaasi oo qaraxyo guryaha lagu sameeyay la beegsado muwaadiniinta aan waxba galabsan iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay iyadoo ay taasi